ChatGPT 4 marka isticmaalayso waxay ka dhigantaa adigoo la hadlaya qof professor ah oo PhD wata halka 3.5 uu noqonaya adigoo la hadlaya ilmo yar oo 10 jir ah farqi aad weyn baa u dhaxaysa ma hadaba ChatGPT marka waxay keentay mid labada dhexdooda ah oo free ah waxaa la ChatGPT 4 oo ama 4 yes oo noqonaya omni waa laga soo gaabiyooda so 4 waxaa laga wadaa ChatGPT free ah laakiin se aan gaarin inta lacagta marka haddii tusaalihii imikaadin si aan isticmaalno wuxuu noqonayaa marka ChatGPT halka ay ka tahay 4ka oday weyn oo professor oo PhD wato 3.5 kana ka tahay ilmo yar oo 10 jira ChatGPT 4 wuxuu noqonayaa qof 30 sano jir ah oo degree haysto kale marka wax badan buu kaga fiican yahay kan marka haddii tusaale siiyo ChatGPT 4 wuxuu leeyahay uu ka xawaaro badan yahay speedkiisa horta asagana free way haddii noqoto af Soomaaliga aad buu uga fiican yahay kan kale oo af Soomaali si fiican buu u fahmayaa marka tusaalayaasha aan siin doona ku arki doontaan iyo asagoo barbar dhigeena marka waxyaabahan baa lagu soo daray marka muuqaalka waxaan doonayaa inaan tusiyo waxyaabaha muhiimka ah ee lagu soo daray 4 sida u isticmaali karto waxyaabo uga faa'iideysan karto marka soo dhawaada muuqaalka ayaan bilaaban doona kahor muuqaalka intaan bilaabin waxaan doonayaa inaan ka codsado fiidiyogan lagana noo saarto dad badan u gaaro soo dhawaada marka waxaan ku bilaabi doonaa qaybta af Soomaaliga iyo isbedelka uu ku soo kordhin doono ChatGPT qaybtiisa 4 oo qof walba si free u isticmaali karo marka qaybta waxaan doonayaa si aad u fahamtaan inaan isticmaalo GPT-4 oo ah ka lacagta ah GPT-4 oo ah kan cusub ee imika free laga dhigay iyo GPT-3.5 oo ah kan free marka waxaan eegi doonaa saddexdoodaba af Soomaaliga iyo sidii u kala fahmi doonaan inagoo isbarbar dhigi doona jawaabta markaana siiyaan waxaan ku bilaabaynaa marka GPT-4ka which I think inuu noqon doono kan ugu khatarsan oo aniguna aan isticmaalo soo kan lacag weeye sanadkii $240 weeye marka hadda kan isticmaasho waxyaabaha ugu fiican sawir baa ku samayn kartaa xitaa unlimited way everything uu ku fasaxan yahay marka asagaan ku bilaabaynaa hadda waxaan soo qaatay qoraal yar waxaan ku dhahayaa waxaad qormo ka samaysaa geela iyo muhiimadda uu Soomaalida u leeyahay ama u lahaa marka intaas baan u direynaa kabacdi wuxuu noo samayn doonaa ChatGPT qormo ku saabsan geela iyo muhiimadda uu leeyahay soo hadda office timing af Soomaaliga uu ku qoray wuxuu dhahaa geelu wuxuu ka mid yahay xoolaha ugu muhiimsan ee bulshada Soomaalida isagoo la qiimo dhaqan dhaqaale iyo bulsho intaba waxaa loo tixgeliyaa hanti nool maadaama uu yahay isha dakhliga ugu weyn ee qoysas badan soo arki kartaa marka af Soomaali wuxuu ku qorayaa very fantastic wax qalada ma lahan jumladaha ay isu dhexgalayaan iyo qaabka qof inuu qoray oo kale la moodaa ma fahmayso computer inuu qoray soo qiimaha dhaqaalaha uu ka bilaabay wuxuu kula geelu wuxuu qayb weyn ka qaataa dhaqaalaha reer guuraaga Soomaaliyeed iyadoo la adeegsanayo siyaabo kala duwan iyadoo la adeegsanayo hilibkiisa caanihiisa iyo haragiisa marka ma ku sii dheeraanayna laakiin hadda aad arkayso GPT-4 waxa weeye top book af Soomaaliga marka hadduu dhameeyay qoraalka soo ku joojiyay geela wuxuu u sameeyay dhaqaalaha bulshada dhaqanka geela iyo deegaanka saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale markaas uu kala qaybiyay qaabku uu kala qaybiyay waa qaabab jumlad ahaan ama structure ahaan marka qoraal la sameeynaya aad buu qurux badan yahay sidii wuxuu isku wada darin wuxuu u kala sameeyay titles kala duwan marka article ahaan oo isticmaali kartaa xitaa so GPT-4 siya inaguna meel kala tagin kaliya waxaan sameyn doonaa meesha sunba taabanayna adiga waxa laga yaabaa kan uun baa ka maqnaanay labadan waa haysan doontaa marka waxaan sameyn doonaa intaan 4 u tagin 3.5 kan doonaya inaan ku tijaabiyo marka aad office-to saddexdooda waxay leeyihiin soo inaan intaan doonaya saddexdooda waxay leeyihiin qoraal yar oo hoos yaala kan waa smart 4ka kan waa fast 3.5 fast laakiin smart ma laakiin 4 wuxuu wataa waana smart waana fast that means labadan ba quality kooda la isku dhexdaray marka imika dan 3.5 ku diro wuxuu sameyn doonaa Soomaali dhintay oo aad iyo aad xun geela waa mid ka muhiimsan oo Soomaalida ayad kelmadaas u horeysa ma aha wax la fahmi karo geela waa mid ka muhiimsan oo Soomaalida si kastaba ha ahaatee muhiimadda geelaha kelmad jirta ma waxa la xusuusan karaa hadii aanu ka hadlayno nidaamka ay Soomaalidu isticmaalaan marka af Soomaali he is trying wuxuu isku dayay inuu qoro qormo laakiin si wada okay si degdeg buu u qoray laakiin smart ma aha kan marka aad office qalaad badan baa ku buuxo ma isticmaali kartid kan I don't think inuu wax faa'iido ku yeelan doono xitaa haddii doonaysid inaad structure ka dib u bedesho ma isticmaali kartid sidoo kale uma sameeynin qaab hagaagsan oo structure fiican just 3 paragraph buu ka dhigay marka waxaan eegi doonaa in video inuu ugu dheeraado marabi qaybta 4 ga eegina marka inuu bal ka duwanaanayo uu ka yar qurux badnaanayo isagana hada kan the office
in the beginning wuxuu u sameeyay horta title geela muhiimadda uu Soomaalidu u leeyahay, so that's your title. Hada halkan uu bilaabo marka soo introduction-ka way kana umalanay geela waa xayawaanka ugu muhiimsan nolosha iyo dhaqanka Soomaalida. waa xoolo si weyn looga isticmaalo dhammaan gobollada Soomaaliya. waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa nolol maalmeedka iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed. Okay, kadib I think kan baa kasii fiican before-kii aan markii hore arkaynay. qaabka uu sameeyay xataa title buu u sameeyay, wuxuu u sameeyay structure kasii weynkii hore, soo muhiimadda dhaqanka laba uu sii kala qaybiyay, muhiimadda dhaqaalaha uu sii kala qaybiyay. marka hadda baas ku dhaji video intaan akhriso hadaa doontid, laakiin ma u maleynaa inuu qalad ku jiro. Maybe waa AI way waxaan qalad waa laga heli karaa, laakiinse haddii u baahanta inaad editing ku samaysid qaladaad badan kama raadinaysid, wax yar baa ka bedeli doontaa. marka that's marka Soomaali af Soomaali la joogo 4oga af Soomaaliga aad buu ugu wanaagsan yahay sida arki kartaan. marka qeybaha dambe ku xiga eegi doonaa marka af Soomaali, laakiinse waa top notch, wax badan baa uga faa'iideysan kartaa inaad ku soo qorato ama aad kaga soo dhex saarato. awoodaha kale uu leeyahay GPT-4o waxaa ka mid ah inuu internetka isticmaali karo. so ChatGPT-ga caadiga 3.5-ka isaga awood uma laha inuu internetka wax kasoo dhex saaro. like for example waxa u sheegtid waxay noqonayaan wax modelkiisa ama datada uu hayo uu kasoo dhex aqriyo. laakiin GPT-4-kan waxa ku isticmaali jiray inaan dhaho internetka waxa kasoo bartaa like shirkadda ugu badan iminka Bitcoin-ka adduunka ugu badan haysata, like uu baxay website ku soo raadinaya uu ku soo sheegay. datadiisna waxay noqon kartaa data update, waxay heli kartaa warbixinadii u dambeeyay ee markaa dhacaya. marka internetka haddii uu isticmaalo wuxuu kasoo heli karaa xog badan, laakiinse markasta internetka hadduu isticmaalo qaladaadka imaan karaa badan, soo waa inaad markasta checking badan ku samaysaa. marka haddii iminka aan qoraalkan soo qortay, haddii iminka aan qoraalkan isticmaalno ku basti karasto GPT-4 isticmaalna hadana adoo internetka isticmaalay waxaa soo ogaataa saddexda shirkad ee ugu waaweyn dhulalka Soomaalidu u degto. marka saddex company waan u dirayaa. marka anigu ma doonayo 100% jawaabta inay sax noqoto qasab ma, laakiin waxaan rabaa inaan tusi inuu searching sameynayo oo uu soo baarayo. marka waxaa ku garan kartaa halkan wuxuu ku qorayaa searching the web. marka searching the web hadaa aragtid that means internet ku isticmaalaya. marka laakiin haddii GPT-3-ga inta u dirno isaga ma sameyn karo inuu internetka isticmaalo. so jawaabta uu siinaya qasab ma inay 100% sax noqoto, laakiinse waxay tusinayaan inuu internetka adeegsan karo. so hadda Dahabshiil buu number 1 ka dhigay, haddana Hormuud Telecom buu number 2 ka dhigay. marka waad dareemi kartaa in uu isticmaalayo inuu xog sax u dhow uu keenayo. that means Hormuud iyo Dahabshiil kambaniyada waaweyn bay kamid yihiin dhulalka Soomaalida degto, iyo Telesom oo iyadana number 4 uu geliyay. marka depends xogta internetka ku jirtay ku xiran tahay, tan maaha qasab inay sax noqoto. hadda labada website buu ku leeyahay waan kasoo qaatay xogta. marka GPT-4-ka wuxuu leeyahay inuu internetka baaro. marka haddii imika aan 3 ka dhigno kan wuxuu ku dhahay this model doesn't support to using this tool. okay, maba isticmaali karo ku dhahay, ma taaban kartid, way ka xiran tahay. laakiin 4 hadda imika u dirno 4oga, so 4oga kan free imika soo baxay isaga awood buu leeyahay searching the web buu dhahaya, wuxuuna keeni doonaa inuu raadiyo. like waxaa laga yaabaa inuu isku jawaabti hadda oo kale mid u dhow inuu keeno luqadda uu English ka dhigay isaga. Hormuud buu markan ka bilaabay. that's why in information ka sax ma noqon karo because internetku kasoo saaray, internetka wixii lagu qoray uu buu ku soo sheegay isaga kuma dhahayo internetka kana sax iyo kaas qalad. so mar walba internetka waxa uu jirana 100% sax ma noqdaan. Somali Petroleum Corporation mid la dhaho kusoo daray. anyway tan marka waxaa loo isticmaalaa in internetka wax ka baartid. so GPT-4o-gana uu leeyahay kan oo isticmaali kartaa. waxaan kaloo doonayaa inaan tijaabiyo qeybaha kale kusii xiga marka waan sii gudbi doonaa. qaybta waxaan doonayaa inaan ku tijaabino wax yar oo extra ah, aan xitaa weli maan eegin tan, laakiin waxaan doonayaa inaan ogaano uun awoodda uu leeyahay AI-ga. so waxaan doonayaa markan inaan su-aal diini ah weydiiyo. waxaan weydiinayaa waxaad qur-aanka kasoo dhex saartaa aayadda uu ilaahay ragga ugu banay 4 xaas inay guursadaan, adigoo ii sharaxaya weliba aan ku daro. marka hadda waxaan doonayaa inuu daraaseeyo quraanka. so I know ChatGPT database-kooda ama machine learning-kooda inay bareen quraanka qasab weeye. marka waxaan u maleynayaa ama aan rajeynayaa inuu si sax u soo sheegi doono. laakiin just example tusaale un bay gataa xitaa imika si in dhalaaban u weydiiyo hore uma tijaabin intan. marka I hope inuu kasoo shaqeeyo. marka saddexda model baan ku eegi doonaa. hadda wuxuu aayadda quraanka ee ka hadlaysa guurka iyo in ragga loo ogol yahay inay guursan karaan ilaa 4 xaas. وسورة النساء آية 3 آية وحكو قرن وإن قفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما داب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
af soomaali inuu kaaga dhigaya iminka so daas waa waxyaabaha cajiib ku leeyahay GPT looga faa'iideysan karo xitaa culimadu isticmaali karaan laakiin mar walba double check waa ku samaysid qof aqoonta diintan u bilaaban tahay oo kala isticmaali karo marka qaar laga yaabaa inuu meel qaldan ku diro laakiin still xog badan baa ku jirta data badan oo la isticmaali karo marka sharaxaad buu sii galaya kan waa GPT-4ka caadiga ee lacagta ah so waxaan noogu xigi doonaa 3ga sida caadiga ah marka kadibna waxaan ku xijin doonaa 4oga marka maybe 3 inuu helo xog laakiin af Soomaaliga inuu saa u qori doono ilama marka hadda waa isticmaali kartaa quraan hadda aayadan haddii aad sii daraasayso oo tafsiirka Sheekh Dirir ama Sheekh Umal ama Sheekh kala sii dhageysato oo si hubiso xog fiican way isticmaali kartid marka adeertan uu dhameystirayaan sugi doonaa sharaxaad dheer buu galana ku yiri sharax aayadan waxay muujinaysaa in guurku uu yahay qorshe lagu xaqiijinayo daryeelka bulshada gaar ahaan xaaladda agoonka oo loo baahan yahay in si gaar ah loo ilaaliyo marka inta hore yataama ku jirto marka inta hore sharaxaya oo in qiftum alla taqsidu fil yataama marka hadda waan bedelaynaa kan 4 way waxaan ka dhigaynaa 3.5 so 3.5 I think inuu si fiican u soo saari doonin bay la tahay laakiin soo ku eegi doonaa aayadda aad soo sheegaysaa waa aayadda saddexaad ee suuradda Nisaa xog ahaan uu hayaa suuradda Nisaa aayadda saddexaad inay tahay laakiinse qoraalkii uu ku ciyaaray asaga inta kale inta aadama korkiihiisu noqon lahaa so it's not good asaga waxaan wanaagsan si computer amal u fasiray xaraf buu u fasiray marka waa gibberish weed si loo eego Soomaali la fahmi karo ma laakiin wuxuu ku siinayaa in aayadii meesha ku jirta suuradda inuu ku soo saaro laakiinse sharaxaadii buu asaga ku wanaagsaneen marka let's try marka 4 baan ku eegi doonaa so tan waxaan u isticmaalayaa knowledge-ka xogta uu hayo inaan ku tijaabino marka English waan isticmaali karnaa Soomaaliga waan isticmaali karnaa kan doono marka haddii English aan isticmaalnayn maybe in uu si sax 3.5 ku sheegi lahaa laakiin af Soomaaliga uu ku xumaaday hadda mar walba u fiirso GPT-4o is more smart and fast sidoo u kala qaybinayo u fiirsatid wuxuu ka dhigayaa wax reasonable ah uu kala qaybinayaa wuxuu sameeyanayaa bullet points kala duwan fiqigii buu ku soo diray xitaa waa more advanced marka is amazing 4o aad iyo aad buu wanaagsan yahay 3 waa sababta idin leeyahay waxa weeye 3.5 waa ilmo yar aqligiisu ma dhameystirna limitations badan bay saareen si kuwan loo iibsado marka adeertan waxaan u maleynaa marka si dadkii ay u baraan wanaagga 4ka in la dhadhansiiyo la doonayo 4 wax la soo saaray ee dhadhamiyaan marka muuqaalku nagu soo dheeraanaya adeertan uu sii sharaxay aayadii laakiin si muu qorin ayadoo carabiga kan suuratu Nisaa aayad 3 haddii aad ka baqanaysaan inaad cadaalad u sameyn weydaan gabdhaha agoonta ah guursada haween kale oo idin xalaal ah 2 3 ma furso anu sheekh ma laakiin waxaan doonayaa inaan idin sheego xogta soo saaray ChatGPT iyo aqoonta uu leeyahay marka iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee leeyihiin saddexda model marka qaybtanna intaas baan uga bixi doonaa aan ugu talagalay inaan tuso aqoonta ku duwan iyo training la siiyay ChatGPT inta la tahay saddexda model ee kala duwanba imiga wixii ka dambeeya haddii aad furto chatgpt.com/gbts oo halkaas sare ah marka hore xaggan qofka aan lacag bixin oo ka xidhnaan jirtay laakiin imiga qof kasta uu isticmaali karaa oo waxay ku jirtaa waxyaabaha lagu soo kordhiyay marka GPT-4o la soo fasaxay muxuu yahay marka GPT so GPTs waxa weeye ChatGPT custom ah oo shaqo gaar ah inuu qabto loogu talagalay so anigu waan isticmaalaa GPT aan training jiro shaqooyin gaar ah qabta limitation ku leeyahay laakiin se markan GPTs ka free-ga ku isticmaalaysid halka button-ka sameysatay aan create baa dhigi karaa halka tarda office-to halkan my GPTs baa igu qoran laakiin adigu awood uma leeyahay labadana sameysatay balse GPT aan sameeyay oo idin la soo share garan karaa kadibna waa isticmaali kartaan like for example GPT wax uu ku saabsan waxa idin sameyn karaa GPT quraanka bis loogu talagalay oo inuu daraaseeyo oo ana si tababaray waxaan ku upload garan karaa documenti Soomaaliya waxaan gelin karaa buugaag af Soomaali ku qoran so custom made baan ka dhigi karaa si aan awoodiis kor ugu sii qaado marka hadda office GPT sectorka waa sida applicationada kale intaas oo qayb u kala qaybsamayaan hadda so for example productivity dan tago wuxuu siinaa GPT lagu talagalay productivity-ga kuwan waxa lagu talagalay research-ka qofka doonaya inuu research sameeyo kuwan xisaabta iyo education-ka lagu talagalay lifestyle-ka marka kuwan wuxuu ku siinaa kuwa ugu fiican ee ugu badan ee la isticmaalo marka haddii imika tusaale yar aan siiyo kan oo kale isticmaali kartaa data analyst-ga oo kale so data analyst-ga hadaan furno imika wuxuu ku sheegayaa xog ku saabsan systemka sida loo isticmaalo so strategy hadaan dhaho waan la hadli karaa adiguna sidoo kale la hadli kartaa marka GPT 3.5 ka berigii uu jiray kan qof kasta ma isticmaali karin marka
waxaan dhihi karaa inaan halkan taabto fail aan hadda soo diyaariyaa jiro inaan dhaho analyze igu samey si aad idinku tuso failkan soo qaadaya marka failkan waxaa weeye weekly income report yaroo sambal ah ChatGPT un baan ku sameeyey markii horeba waxaan rabaa inaan ku dhaho analyze this data and give me simple report like waxa doonta u diri kartaa depends xogta meesha ku jirta anima eeginba ma furin failka marka waxa ku dhahay iminka failkan analyzing igu sameey kadibna report yar iga sii marka analyzing buu dhahay iminka xagaas wuxuu ku leeyahay I will take a look on eega failka kadib iminka analyzing buu ku sameynaya kabacdi wuxuu ku siin doonaa jawaab ku saabsan xogta uu ka helay marka it's not ma fiicna inaad fail sensitive oo xog muhiim ku qoran tahay u dirto ChatGPT haddii business haysato laakiin mararka qaar uu ku caawin karaa haddii assignment lagu soo diro kale ama wax noocaas marka hadda wuxuu siinaa weekly reportkii u dambeeyay maalin walba income-kii soo gala company-ga sidoo kale sawir interview marka waxaan ku dhihi karaa wax kayaabo kale oo sii sheegi karaa waxaan dhihi karaa waxaa ii sheegtaa next week maxaan rajeynayaa oo kale anything wax walba u isticmaali kartaa hadda ma doonaya inaan analyzing-ka waxaas dhex galno laakiin waxaan idiin sheegaya awoodda uu leeyahay GPTs-ka iyo inaad u isticmaali kartid mid walba shaqada uu qabanayo inuu kaaga shaqeeyo so total weekly income buu ii sameeyey average daily income buu ii sameeyey highest income day buu ii sheegay inay axaddi tahay lowest income day inay monday tahay marka these insights give you a quick overview hadda waxaan u malayaa inuu dhihi karo create a pie chart baan dhahayaa maybe inuu sameyn kara laga yaabaa oo ku saabsan kan marka hadhow sawir ahaan baa u degsan kartaa pie chartiga isticmaali kartaa marka muuqaalkiina nagu sii dheeraadaan diidaya in badan baa hadlayay marka halkaas sawir haddaan aragno waxaan u gudbi doonaa qaybta kale oo aan doonay inaan kusoo gabagabeeyo hadda sawir buu sameeyay umaleynaya weliba soo lorgasma waa ka ahaa maalin walba chartiga iyo wixii la kala sameeyay Sunday baa 16.1 ah Monday baa 11.6 oo ugu yar marka hadda right click dhawan save gareyn karaa sawirka waa isticmaali karaa marka kan waxaa u isticmaali kartaa GPTs-ka iyo inaad xitaa ku sameyn kartid data analysis-ka adigoo isticmaala GPT-4o-ga oo hadeertaan free laga dhigay marka qaybta kale aan usii gudagali doono way qaybta waxaan doonayaa dhan inaan isla eegno waxa la yidhahda memory so ChatGPT has memory hadeertaan 4o-ga memory buu leeyahay so memory wax kale maahan inuu ChatGPT ku barto adiga magacaaga barto waxaa qabatid barto waxaa jeceshaa barto so taas waxay keenaysaa inuu ku siiyo more personalized information adiga kugu habboon marka hadeertaan waxaan dhihi karaa hadda wax weli aanan barin baa weydiinayaa kadib waxaan ku dhahayaa waxaas baro oo save garee marka waxaan weydiin karaa where was I born marka weli maan u sheegin you haven't told me ku dhahayaa marka weli ma sheegin meesha ku dhalatay hadda hadii aan u sheego meeshaan ku dhashay waxa dhici doonta marka inuu save gareeyo laakiin waxaan doonayaa in su'aasha markaan weydiinayo koobi aan dhahayaa inaan GPT-4o galo chat cusub baan furayaa kadib hadda waxaan dhahayaa marka la weydiinayo where was I born so hadda wuxuu ku leeyahay maanan ii sheegin meesha ku dhalatay xaggee ku dhalatay marka haddaan ku dhaho iminka Muqdisho aan ku dhashay for example wuxuu sameyn doonaa marka in uu save gareeyo laakiin iminka haddii intaan siiyo waxaa soo bixi doona qoraal yar oo ii sheegaya saving memory updated so kan ma arki jirin markii hore hadeertaan wuu soo baxay marka su-aasha mar kale haddaan weydiiyey iminka where was I born wuxuu isiin doonaa in aan ku dhashay Muqdisho you were born Muqdisho Soomaaliya so taas waxaa keenay memoryga magacayga xataa uu siiyay manage memory waa dhihi karaa waxyaaba qaar waan ka saari karaa waxyaaba qaarna kusoo diri karaa sidoo marka waxaan doonayaa inaan ku eegno GPT-3 inay intaas sameyn karto way marka GPT-3.5 memory suu ku yahay haddii halka iminka aan 3.5 ka dhigno hadda ma ogolaanayo horta mar walba haddii aad isticmaalayso wax uusan isaga sameyn karin ma kuu fasaxayo marka waa inaad chat cusub furtaa kadib 3.5 aad tagtaa marka iminka daa dhaho where was I born maybe inuu memory soo akhristo laga yaabaa okay, I don't have access to your personal information marka create waxaan dhahayaa a memory about my nickname aseer baan dhahayaa for example waxaan dhahay the memory iga sameeya nicknamekayga wuxuu ku leeyahay sure here's a memory feature so wax kale uu sameeyo marka memory wuxuu ka wadaa malaha anigu uga hadlaya iska sheeka camal buu sameynaa laakiinse memory ma garanayo iminka so video aad buu nagu dheeraaday waxyaabo kale badan buu leeyahay GPT-4o-ga marka casharo kalena ka sameeya muuqaal kalena ka sameeya laga yaabaa laakiinse iminka hadda inta ugu muhiimsan baa idin la wadaagay I hope inaad ka faa'iidaysateen aad baa idin salaamaysan calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh